maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wada qorshe ku aadan qaabkii loo soo wareegi lahaayeen xidiga kooxda Bianconeri Juventus ee Douglas Costa sida warbixinada marka ay shaacinayaan waxaana qaarkood baa la sheegayaa in kooxda kubadda cagta Manchester United ay wali ku guda jirto ololahaasi maxaa yeelay waxay hore kooxda kubadda cagta Manchester United u raajicisay dalabkeedii ku aadan laacibka u dhashay wadankaasi Argentina Paulo Dybala oo isbedel xooggan markaa ka sameeyay inta uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus rajadaasi oo hami xooggan gelisay kooxda kubadda cagta Manchester United isku daydaasi labadii jeer ee xidiga ka tirsan kooxda kubadda cagta Juventus Paulo Dybala way ku guuldareysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United balse waqtiga kan xaadirka waxay aad ula dhacsan yihiin qaab ciyaareedka ciyaaraanka ka tirsan kooxda Bianconeri Juventus ee Douglas Costa oo ay doonayaanba inay ka soo ambixiyaan Turin sida madaxda kooxda kubadda cagta Manchester United ay hadal hayaan maadaama laacibkaasi Douglas Costa uu yahay in uu imaan karo Stadio Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United rajada ugu ballaaran ay kooxda kubadda cagta United ay ka leeyihiin maadaama ay sheegeen in ay la qaadan doonaan kulan ugu dambeeya haddii xidigaasi hami ku aadan inuu u soo dhaqaaqo Stadio Old Trafford ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United in ay dadejin doonaan qiimo walba ee u qalmo xidigaasi inuu markaa ugu soo biiro kooxda kubadda cagta Manchester United qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee kooxda Manchester United ayaa markaa kula talinaya Manchester United inay helaan sida xidiga Douglas Costa oo ah laacib dhameystirkiisu aad u wanaagsan yahay waana xidig markaas si weyn kaga dhex muuqanayo tartamada ugu waaweyn ee laga ciyaaro qaarada Yurub waana natiijada ugu weyn ee kooxda Manchester United ay damacsan tahay bisha January sanadka 2020 ee foodin ugu sahaysa laacibka kooxda kubadda cagta Real Madrid Toni Kroos ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha labada dhinac ee Real Madrid iyo Manchester United oo toddobaadkii ugu dambeeyay si weyn ay u lafagurayeen ayaa la sheegay inuu qayb ka noqon doono hamiga xidiga lagu doonayo ama ay doonayso kooxda kubadda cagta Real Madrid in garoonkeeda ay geeyaan waa wiilka reer Faransa ee Paul Pogba labadii toddobaadii ugu dambeysay ayay si weyn markaa u soo jiitamaysay arrimahan u dhaxeeya labada kooxood ee Real Madrid iyo Manchester United waxna Manchester United ay toddobaad ka hore isku day xoogan ay sameysay in markaa dhinacooda loo soo wareejiyo xidiga Toni Kroos oo sidoo kale lacag markaa la soo raacinayo si Paul Pogba u noqdo mid u degdego ku biirista garoonka Santiago Bernabeu laakiin Toni Kroos oo ah laacib ka soo jeeda wadankaasi Germany ayaa wuxuu leeyahay shakhsiyan anigu waxaan ahaa ciyaaryahan wali aad ugu qanacsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid maxaa yeelay wali waxaan ahay laacib kalsooni weyn isku qaba mana noqon kari ciyaartooyda qayb loo heshiiska qayb ka noqon doona waxaan aad ugu faraxsanahay oo kaliya inaan si xur aan kaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Real Madrid Toni ayaa sidoo kale waxa aad u xiiseynayay kooxaha kubadda cagta ee Manchester City Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain hadaba ciyaaryahankan ayaa u muuqanaya hadalkiisa inuu aad ugu carooday dalabka kooxda kubadda cagta Manchester United oo lacaga iyo Toni Kroos la doonayo in markaa ay ku bedeshaan wiilka reer Faransa ee Paul Pogba oo toddobaadkii ugu dambeeyay markaa uu sheegay inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Manchester garoonkeeda ee Old Trafford kadib markii ciyaaryahanka uu saxaafadda wadankaas Ingiriiska u sheegay in go'aankiisu uu yahay inuu mar uu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaana markaa arintaasi ku adkeynaya asagoo xusaya in dhawaaqiisa uu yahay mid aad u sareeya Paul Pogba uu qayb ka noqon doono ciyaartooyda la doonaya sanadka cusub inay ku soo degdegaan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kooxda ka dhisan horyaalka wadanka Talyaaniga ee Bianconeri Juventus ayaa wali aad u ceersanaysa dalabkeeda ku aadanaa ciyaaraanka ka soo jeeda wadankaasi Germany gaar ahaan ka tirsan kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz waxaana ay doonayaan ciyaaraankaasi inay gacanta ku dhigaan maadaama ay baadigoobayaan qaar ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan tartamada kala duwan ee qaaradaha Yurub kooxda kubadda cagta Juventusna waxa ay diyaar u tahay inay arintaasi kala xajooto madaxda kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen warbaahinta wadankaasi Germany waxay leeyihiin wiilka kan ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen Kai Havertz ayaa shakhsiyan doonaya inuu ka faaruqo Bundesliga wadankaasi Germany waxaana uu aad u soo jiitay kooxo waaweyn ee ka dhisan qaarada Yurub haba ugu horeeyaan Bayern Munich Barcelona iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kooxo ka dhisan horyaalka wadankaas Ingiriiska ee Premier League ayaa sidoo kale aad markaa u doonaya dalabka ciyaaryahankaasi ka tirsan kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz laacibkani ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ayaa horay waxa uu sheegay inay ka go'an tahay oo kaliya inay helaan ciyaaryahankaasi maadaama kooxo kale ee ka dhisan Premier League ay wali aad u ceersanayaan ayadoo la xusayo sida kooxaha kubadda cagta
Manchester United, PSG, Arsenal ay dhamaantood ayna ay doonayaan in ay ku dagaalamaan dalabka ciyaaraankaasi ee Kai Havertz. madaxda kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen waa ay aqbaleen in sanadkan wixii ka dambeeya iska fasaxan ciyaaraankaasi ayagoo ka faa'iideysanaya xiddigaasi inay ku helaan qiimaha waqtiga kan xaadirka maamulka kooxda Bayer Leverkusen ay ku doonayaan in Kai Havertz uu kaga ambabaxo garoonka kooxdaasi. Juventus waxay diyaarinaysaa qiimaha ugu dambeeya oo laacibkaas u qalmo in uu ugu biiro garoonkeeda maxaa yeelay waxa sidoo kale ay cabsi xooggan ay ka qabaan labada kooxood ee aadka ugu xifaaltamaya horyaalka waddankaasi Isbaanishka Real Madrid iyo Barcelona halka sidoo kalena laga yaabo in ay rogaal celin xooggan ay soo sameeyaan kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska oo wali aad u xiiseynaya xiddigaasi Kai Havertz oo ah laacib da'yar ee si weyn kaga dhex muuqanaya Bundesliga waddankaasi Germany. 11 kooxood oo awood ku leh tartamada qaaradda Yurub ayaa ciyaarankani aad u doonaya waxaana koox walbaba ay diyaar u tahay in saxiixiisa marka ay ku guuleysato. ciyaaraanka u dhashay waddankaasi Serbia ee qadka dhexe ka ciyaara ee Milinkovic Savic ayaa markaa wali xusaya inuu aad u xiiseynayo oo kaliya in kooxdiisa uu ku sii nagaado asagoo albaabada ka xiranaya kooxaha waqtiga kan xaadirka ciyaaraankaasi baadigoobaya. waxaana laacibkani si weyn markaa u xiiseynaya kooxaha kubadda cagta ee Bianconeri, Juventus, Manchester United, Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. koox walba dhinac ay markaa ka ciilsanaysa dalabka ciyaaraankaasi maxaa yeelay wali maysan ka samreen oo waxay doonayaan xoog weynahana u dhashay waddankaasi Serbia ee Milinkovic Savic in uu yahay ciyaaraan ka badbaadin kara caqabadaha ka haysta qaybta qadka dhexe kooxaha waqtiga kan xaadirka baadigoobaya sida Juventus, Manchester United, Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. wiilka kan reer Serbia ee Milinkovic Savic waxa uu leeyahay anigu kalsooni weyn ayaan ku qabaa wali inaan baaqi ku sii noqonayo kooxda kubadda cagta ee Lazio maanan go'aansanin inaan kooxdeeda aan ka dhaqaaqo waayo wax waliba waan ku haystaa aad ayaana sidoo kalena aan u taageeraa taageerayaashii faraha badan ee kooxda kubadda cagta Lazio ayaa laga soo xigtay xiddigan Milinkovic Savic. laacibkan ayaa sidoo kale waxaa la isku dayay in isbedelo xooggan markaa oo la sameeyo kooxaha baadigoobaya si ay markaa u ballan qaadaan ama ay u soo jiidis xooggan ugu sameeyaan xiddigaasi Milinkovic. laakiin Milinkovic ayaa markaa ugu dambeyntii sheegay in uu ku sii nagaadayo sanadaha soo socda kooxda kubadda cagta ee Lazio. xitaa kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay sameynaysaa isbedela ayadoo ay ku dareen 7 ciyaartooy ee Manchester United doonaysa sanadka cusub inay markaa geeyaan Stadia Old Trafford ayuu ka mid yahay laacibka reer Serbia ee Milinkovic Savic. tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa markaa rajeynaya in xil ciyaareedkani ay mar kale ku dagaalamay doonaan loolanka horyaalka waddankaasi Ingiriiska Premier League ayadoo markaa uu Pep Guardiola uu aad u doonaya in kooxdiisa kubadda cagta Manchester City ay markaa sameeyso dhacdadii hore u sameeyso kooxda kubadda cagta Manchester United oo aad ka markaa ugu xifaaltamaan horyaalkaasi. Manchester United ayaa 3 jeer oo xiriir markaa ku guuleysatay horyaalka Premier League intii u dhaxaysay sanadii 2007 ilaa 2009. Sitana waxa xilligan ay doonaysaa waqtiga kan xaadirka inay noqoto koox markaa ku guuleysanayso 3 jeer oo xiriir ah. rajada ugu ballaaran ayaan ka leenahay maxaa yeelay isku dayideenu waa mid aad u sareeya waxaan doonaynaa inayna markaa xoojino guulaha aadka u faraha badan si aynu u qancino maamulka iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester City. hadalhaynta macallin Pep Guardiola waxa sidoo kalena ka hadlay xiddigiisa David Silva oo markaasna aaminsan ray ah in kooxda kubadda cagta Manchester City ay awood ay ku qaadi karto xil ciyaareedkan horyaalka waddankaas Ingiriiska. wax waliba waxa uu leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola waa in aynu helnaa isku xirnaan taa oo aan ku qancin karno dhammaan inta ina daawanaysa ayaa laga soo xigtay macallin Pep Guardiola maxaa yeelay sanadka ka dambeeya horyaalka waddankaas Ingiriiska uu sii adkaanaya kooxaana awood fara badan ay markaas sii lahaynayaan waana rajada ugu weyn ee markaa kooxaha gelin karta in ay hakiyaan kooxii ugu dambeeyay ku guuleysanayay horyaalada ama koobka laga ciyaaro gudaha waddankaas Ingiriiska laakiin waa inaynu bedelnaa xarakaadkii labadii sano ugu dambeysay ee lagu yaqaan kooxda kubadda cagta Manchester City waa sidoo kale waa inaynu sameynaa awood dheeri ah oo ay la yaabi doonaan kooxaha xilligan ay la xifaaltamayso kooxda kubadda cagta Manchester City. hadda ma jirto xil ciyaareedkan koox la leeyahay waa ay ku guuleysan kartaa Premier League laakiin waa in aynu sameynaa saameyn kooxaha kale ku reebi karta inaysan ku soo degdegin awoodda kooxda kubadda cagta ee Manchester City. haddii aynu si wada jir u wada shaqeyno dhammaanteena waxaynu noqon doonaa kuwa gaar hamiga ugu dambeeya xil ciyaareedkani tartamada qaaradda Yurub ayaa laga soo xigtay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola oo rajeynaya in ay mar kale City ku guuleysato Premier League.
tobaraha kooxda kubadda cagta Arsenal macallin Unai Emery ayaana markaa kalsooni weyn ku qabaa in ciyaaraankiisa Mustafi uusan meelna kaga dhaqaaqi doonin xilli ciyaareedkan kooxda kadib markii laacibkaasi 27 jirka uu ku dhawaaqay inuu ka faaruqi doono Stadia Imaratiza xilli laacibka dalabyo ka soo gaaraya horyaalka wadankaasi Talyaaniga. Mustafi ayaa waxa uu hore u soo jiitay dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalada wadankaasi Talyaaniga iyo Faransiiska balse macallin Unai Emery ayaa markaa xusaya in laacibkaasi Mustafi meelna uusan kaga dhaqaaqi doonin waqtiga kan xaadirka kooxda asagoo u sababeynaya in Mustafi ay Arsenal aysan ka maarmin. waxaynu siin doonaa fursado uu ku qanco iyo sidoo kale dhaqan aad u wanaagsan ayaa laga soo xigta macallin Unai Emery waan fahmi karnaa ciyaaryahanka waxa uu ka caroonayo laakiin waxaynu ku dadaali doonaa wax walba uu ku qanco Mustafi in aynu sameeyno waxaan diyaar u ahay qaab walba uu markaa garoonka ama kooxda uu la siman noqon lahaa Mustafi in aynu markaa sameeyno tobraha macallin Unai Emery ayaana markaa kalsooni weyn ku qaba in wiilka kan oo dhashay wadankaasi Germany Mustafi uusan ka dhaqaaq doonin sanadka cusub kooxda asagoo markaa sheegay in ciyaaryahankan uu u yahay qodob dhaxaadka ugu muhiimsan ee dhinaca difaaca kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Laacibka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Christian Eriksen ayaa diyaar u ah inuu ka dhaqaaqo waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Tottenham kadib markii ciyaaryahanka uu shaaciyay inuu markaa uu ka biidiiday hadalhaynta ugu weyn ee madaxda kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ay ku doonayeen in ciyaaryahankani heshiis cusub ay ka saxiixdaan si laacibka uusan kaga ambabixin istaadiyaha. laacibkan u dhashay wadankaasi Denmark Christian Eriksen ayaana markaa ka warsugi doona oo kaliya in sanadka cusub bisha January 2020 inuu fursad kale ama dalab uu ka helo kooxda kubadda cagta Real Madrid haddii aan dalab ka helo kooxda Real Madrid sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u cagdhigan doonaa garoonka Santiago Bernabeu ayaa laga soo xigtay Christian Eriksen. ciidaankana sidoo kale waxaa xiiseynaya Bianconeri Juventus iyo kooxda kubadda cagta PSG labada kooxoodba ka dhisan horyaalada Faransiiska iyo Talyaaniga laakiin wiilka kan u dhashay wadankaasi Denmark Christian Eriksen waa ay ka go'an tahay oo kaliya u dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Real Madrid oo sanadkii ugu dambeeyay ku guuldareysatay in ciyaaryahankaasi gacanta ay ku soo dhigaan xitaa sanadkan waa ay isku dayeen kooxda kubadda cagta Real in ciyaaryahankaasi Eriksen ay markaa la wareegaan waxaana la sheegayaa in Christian Eriksen waqtiga kan xaadirka uu aqbalay kulamadii ay la qaadanayeen maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid asagoo markaa diyaar u ah in January markaa u dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana laga warsugi doonaa inay dalab degdeg ah Real Madrid ay ka soo gudbiso maadaama ciyaaryahankani Christian Eriksen uu diiday in heshiiska uu sii kordhiyo kooxdiisa Tottenham Hotspur xitaa macallin Pochettino waa uu isku dayay inuu markaa arintan uu ka dhaadhicay laacibkani waa uu ka diiday wiilka u dhashay wadankaasi Denmark Christian Eriksen in markaa uu waqti kale ula sii qaato kooxdiisa Tottenham Hotspur. kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa sidoo kale xoojinaysa dalabkeedii ku aadanaa ciyaaraanka ka tirsan kooxda Benfica ee Gedson Fernandes waa 20 jir aad khibradiisa ay u sareyso waxaana ciyaaraankaasi dalabyo dhowr ah ka soo gudbiyay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan qaaradaas Yuruba ciyaaraankan ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda sida weyn kaga dhex muuqda kooxda kubadda cagta Benfica oo saameyn ballaaran markaa ku leh waxaana maamulka kooxda kubadda cagta AC Milan ay doonayaan in ay arrintan xoojiyaan ayadoo qaar ka mid ah warbaahinta wadankaasi Talyaaniga ay xuseen in Milan ay ka hartay dalabkeedii ku aadanaa xidigaasi Fernandes laakiin waxa ay sheegeen inaysan wali ka hareen inta ay go'aan rasmi ay ka gaarayaan maamulka kooxda kubadda cagta ee Benfica ciiraankani ayaana markaa heshiiskiisa lagu burburin karaa oo kaliya adduun cageed gaaraya 120 milyan oo lacagta Euroga Milan ayaa hore isku day xoogan sameysay iyadoo u soo bandhigtay adduun 50 milyan oo lacagta Euroga waxaana waajib ku ayaa leeyahay si ay u hesho xidigaasi qadka dhexe ka ciyaara Gedson Fernandes in markaa Milan markaa ay bixiso qiimaha waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Benfica ay ku doonayso in ciyaaraankeeda 20 jirka markaa ay ku fasaxdo Milan waxa laga warsugi doonaa bal in ay kordhiso qiimaha ay ku doonayso kooxda kubadda cagta ee Benfica ciyaaraankaasi Fernandes haddii ay markaa helaan qiimahaasi waa ay ku guuleysan karaan saxiixa ciyaaraankaasi haddii kale waxa ka faa'iideysan doona kooxaha kale ka dhisan Premier League oo si gaar ah u baadigoobaya ciyaaraankan ka tirsan kooxda kubadda cagta Benfica ee Gedson Fernandes ugu dambeyntiina maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa ay rajeynayaan in sanadka cusub ee 2020 inay la soo wareegi doonaan xidiga Paulo Dybala ay ka tirsan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus kadib markii ay isku day dhowr ay sameysay kooxda kubadda cagta Manchester United laakiin ay ku guuldareysatay warbaahinta wadankaasi Talyaaniga waxa ay leeyihiin arintani waxa doonaya in uu dib u soo cusboonaysiiyo tobraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Solskjaer oo markaa doonaya in arintani uu ka dhaweeyo riyada Manchester United-na ay noqon doonto mid mar dhow ah
Paulo Dybala ayaana markaa go'aansanaya ka dhaqaaqista xil ciyaareedkan ee kooxda Piangner Juventus balse madaxda kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa doonaya in arrintan ay ka dhaweeyaan taa oo la doonaya in Dybala lagu dhaxarko istaadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United Tobare Oli ayaana markaa ballanqaadkaasi sameynaya asagoo rogaal celin xoogganna markaa ku tilmaamay in ciyaaraankaasi ay ku xoojin doonaan dalabka ku aadan bisha January markuu dib furmo suuqa iibsiga ciyaartooyda